Assalaamu calaykum. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay Mr. Beast ayaa ninka waxa uu la geli doonaa challenge. Waxaana la rabaa inuu 5 dabaq uu ka soo gudbo uu badbaadsado lacagtiisa. Lacagtan hadday 10 daqiiqo ka dhamaadeen waa ay gubanaysaa. Waxaana loo sheegay inuu bilaabmay challenge-gii isla markiina waxa uu gudagelayaa inuu iska furo xariga. Waxaana la rabaa inuu 5 dabaq ka soo gudbo oo ninka meel kasta waxa ayaa lagaga xidhay xataa lugaha gacmaha meel kasta ha sheegin. Waqti badanba kumaanay qaaday inuu iska furo. Waxaana uu gudbayaa dabaqii 5aad. Dabaqana waxa uu saabsan ninka ayaa waxa uu ku xidhan yahay qafiiskaas amba jeelkaas. Waxaana la rabaa inuu iska furo intaanu dabkaas soo gaadhin. oo qufulka meeshan ku xidhan waxa uu ka kooban yahay 3 nooc oo 3da meelood waa in la isku beegaa hal mar. haddii aad isku beegi weydin kuma furmayo oo waqtigiina 1 minute ayaa ka dhacay oo waqti badan ayaa ay ku qaadanaysaa inuu ka soo gudbo dabaqan oo waxa uu sii haray dabaqyaalkaada kan oo waxa la rabaa inuu badhinkaas taabto. haddii uu taaban waayo lacagtu ay gubanaysaa. ugu dambayntana albaabka waa uu iska furayaa. xadhigaas ayaanu qabsanaya waxaanuu daadegayaa dabaqa ka hooseeya 4aad oo dabaqana waxa uu ku saabsan yahay xabag ayaa dhulka la mariyey. waxaana la rabaa isagoo xadhigaa haysta inuu tago calaamada cagaarka oo haddii uu hal mar taabto sidaas ayaa uu challenge uga baxayaa. oo waxa loo sii diyaariyay xadhka yarar uu qabsado. waxaanu iska ilaalin doonaa inuu dhulka taabto. xadhigba xadhiga kale ayaa uu sii dhiibayaa oo waxa uu ku dadaalayaa inaanu dhulka taaban. mis odhan karnana dabaqana waa dabaqa ugu fududaa uu soo maro. ugu dambayntana sida uu u soo socday waa uu ka gudbayaa oo waxa uu gaadhayaa xariijintii cagaarka ahayd oo waxa uu qabsanayaa xadhigaas. waxaanuu daadegayaa dabaqa ku xiga. dabaqana waa dabaqa 3aad oo waxa uu ku saabsan yahay waxa laga rabaa inuu dhagaxa jaro oo xadhka ayaa dhagaxa weyn ku xidhan. waxaana laga rabaa inuu daaqada ku jabiyo. marka uu meesha uu kusoo daadegana waxa uu jebin doonaa dhaladaas. sidaas ayaanu ugu gudbayaa challenge-ga 2aad. mindidii la siiyey ayaa uu soo qabsanayaa. waxaanuu bilaabayaa inuu labada dhinac ka jaro xadhkaha. xadhkahana hamoodan qaar si fudud loo jari karo oo halkii midh ayaa kugu qaadanaysa inaad tirtid waqti badan. ninkana ilaa imika midhii koowaad ayaa uu wadaa. waqtiga u hadhayna waa 6 minute oo keliya. waxaanu ka soo gudbay 2 dabaq oo keliya oo ilaa imika midhii ayaa uu wadaa. daariqna halkan ayaa uu ka dhiirigelinayaa ninka. ugu dambayntana waxa uu suurtagelaysaa inuu jaro xabadii koowaad. waxaanuu gudbayaa xabadii 2aad. xabadan kalena iyaduna waqti badan ayaa ku qaadanaysaa si uu jaro. ugu dambayntana xabadii 2aad sidaas ayaa ay u go'aysaa. waxaana laga rabaa dhagaxa intuu gadaal uu ka maro inuu soo daayo uu dhaladaas u jabiyo. hal mar ayaanu soo fasaxayaa. dhaladiina waa ay jabaysaa. dhagixina dibadda ayaa uu soo baxayaa. iyagiina halkan ayaa ay ku yaaban yihiin oo waxa laga rabaa xadhiga inuu qaato uu isku xidho uu daadego dabaqa ka hooseeya. dabaqa ka hooseeyana ma lahan wax albaaba oo waxa la rabaa inuu sameeyo alaabta filimaanta oo kale oo uu ka soo boodo dabaqa sare oo uu aado dabaqa hoose. waxaana ka horeysa inuu jabiyo dhaladaas. hal mar ayaanu boodaya waxaanu jabinayaa dhaladii. sidaas ayaanu ku gelayaa dabaqii 2aad. waxaanu ku saabsan yahay dabaqan laysaro oo laysarkaas hadduu ku taabto sidaas ayaad challenge ku macasalaameynaysaa. hal mar ayaanu gelayaa. waxaanu iska ilaalinayaa inuu laysarkaas taabto. si aynu wada ognahay hadduu taabto challenge-ga sidaas ayaa uga hadhayaa. lacagna kuma guulaysanayo oo ninkan aad ayaa u taxadir badan yahay. waxaanu iska ilaalinayaa dhammaan laysarada. sidaas ayaanu uga soo gudbayaa midkan. haddana waxaa loo sii dhigay laysarkan oo dhulka yaala isaguna si fudud ayaa uga soo gudbayaa oo waqti badan kuma qaadanaya kani. markaan kalena waxaa loo sii dhigay laysarkan oo marba dhinac u socda oo waxa laga rabaa hal mar inuu orod ku dhaafo meeshaas oo midkii koowaad sidaas ayaa uga soo gudbayaa. ka labaadna hal mar ayaa uu dhaafayaa. waxaanuu gudbayaa dabiqii ugu dambeeyey. waqtiga u hadhayna waa 3 minute oo keliya oo waxa la rabaa inuu biyaha ku dhex dhaco oo meesha uu biyaha ka saaro kadibna uu soo baxo. hal mar ayaanu biyahaasa ugu boodayaa. waxaanu isku dayayaa inuu kor u soo baxo. waxaa loo sameeyey 4 dhuumood oo biyuhu ay ka kala baxaan oo waxa la rabaa dhammaantoodba inuu furo kadibna uu badhinkaas uu taabto si ay lacagtiisuna ugu badbaado. oo waxaa loo sheegayaa inuu 4taas dhuumood uu soo furo kadib uu meesha uu ka soo bixi karo. waxaanu isku dayayaa inuu midha koowaad furo. biyaha ayaanu hoosta u gelayaa oo waqti yaro uu wareejiyey baasha. waxa u suurtagelaysa inay biyuhu tuumbadaas ka soo baxaan. waxaanay noqonaysaa xabadii koowaad uu furo. waxaana loo baahan yahay 3 dhuumood kale inuu furo. waxaanu isku dayayaa inuu midha 2aad furo balse naqaska ayaa ku dhagay dibadda ayaanu soo baxayaa oo waqtigu marba marka ka sii dambaysa waa uu sii yaraanayaa oo
oo waxa uu go'aansanayaa inuu ku noqdo waxaanu isku dayayaa inuu furo. Ugu dambayntana tuumbadii labaad sidaas ayaa uu ku furayaa oo si dhaqsi leh ayaanu biyaha uga soo baxayaa. Mr Beast waxa uu xasuusinayaa inay laba kale u harsan yihiin, isaguna dhinaca kale ayaa uu u dhaqaaqayaa oo waxa uu go'aansanayaa inuu midda saddexaad furo. Neef ayaanu sii qaadanayaa. Hal mar ayaanu bilaabay inuu biyaha hoos u galo waxaanu isku dayayaa inuu middaas furo. Ugu dambayntana waa uu furayaa. Sidaas ayaanu afartaba ku dhammaynayaa oo waxa uu soo gudbayaa xabaddan ugu weyn oo waxa la rabaa meesha yar inuu ka soo baxo. Xabaddaasina waxay noqonaysaa xabaddii shanaad, waxaana u hadhay waqti aad u yar. waxaanu isku dayayaa inuu albaabkaas ka furo. Carol iyo Mr Beastna xagga hore ayaa ay ku sugayaan. albaabkana boolal yaryar ayaa ku xidhan, waxaa la rabaa boolalkaasoo dhan in la furo. waqtiguna aad ayaa uu u soo yaraaday, waxaanu isku dayayaa awooddiisoo dhan inuu ku furo albaabkaas. ninkanna maisleeda challengekan waa uu ku guulaysan doonaa. ugu dambayntana boolkii ugu dambeeyey ayaa sidaa uu u furmayaa, laakiin albaabku ma wada furmayo. isaguna waxaa yeeli maayo oo qasab ayaa uu meesha uga soo dhex baxayaa. dhammaantoodna markay arkaan aad ayay u farxayaan, waanay dhiirigelinayaan. sidaas ayaanu badhinka ku taabanayaa, waana loo hambaliyeynayaa. sidaas ayaanay lacagtiisa uga badbaaday oo meesha waa laga soo qaadayaa. oo halkaas ayaa uu challengegeenu inugu eegyahay. isku dayna inaadna soo raacid oo muuqaalkanna aad leeg saartid si aynu u gaarno 500 oo subscribe. haddaba challengegan 10 imisa ayaad siin lahayd? aad iyo aad ayaanan ugu mahadsantihiin inaadna gaarsiisaan 100 subscribe. intaa iyo inka badan ayaan rajaynayaa insha Allah.